magaalada Boorama waxaa maanta laga tukaday salaad roob doona isla markaasina Ilaahay laga baryayay in ay dadku helaan roob khayr qaba isla markaasina dadka iyo xoolaha iyo dhulkaba u nimceeya waxaana maanta isku soo bixin dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama garoonka kubadda cagta ee Xaaji Daahir Stadium halkaasi oo shacab aad u tiro badan ay iskugu yimaadeen isla markaasina ay ka qayb qaateen salaada roob doonta ah ee uu madaxweynaha Somaliland u ilaamiyay in laga tukado guud ahaan gobolada iyo degmooyinka Somaliland waxaana munaasabadani maanta kala qayb galay bulshada wasiirka wasaaradda beeraha Somaliland iyo isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta culimo awdiin iyo dadweyne aad u tiro badan waxaana markii salaadu soo idlaatay ka hadlay isuduwaha diinta iyo awqaafta gobolka Awdal Sheekh Xamuud Nadiif waxaana hadaladiisa kamid ahaa Allah inoo aqbalo إن شاء الله تعالى إلهي نجزينا الله يدسيه أدعوني وأستجيب لك إلهي بانبرنا الله ينقبله إلهينا الله وطوبت كينو يعيوناك الله يسبره والله ليال إلهي وحكبرنا سبحانه وتعالى halka maanta aynu isugu nimid Ilaahay dartii u nimid in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ina ajiibo sidadeed waxa la inooga baahan yahay inaan Ilaahay u toobad keeno inaan masaakiinta u naxariisano inaan madaalimta u ciyaargalana iska saarno oo mustaxiqiisan siino walaalayaal Ilaahay wuxuu ud'uu rabbakum tadarruan wa khufiya Ilaahay bariya idigoo khushuucsan idigoo khufiya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistiisa jarinaya sidoo kale waxa isaguna halkaasi uga duceeyay dadkii ka soo qayb galay salaada roob doonta wasiirka wasaaradda beeraha Somaliland Professor Farax Ilmi Geedole Ilaahay naga aqbalo dadku haysa saamaxaan Ilaahay aan barino weeyaan roobku biyuhu waa nolosha biyo la'aan nololi ma jirto bixi maayo xoolo jiri maayaan dadna jiri maayo Ilaahay anniyadeena aan ka dhigno mid kaliyaata ikastaba ha ahaatee waxa maanta lagu arkayay garoonka weyn ee Xaaji Daahir Stadium ee lagu ciyaaro kubadda cagta ee magaalada Boorama dadweyne aad u tiro badan kuwaasi oo wajigooga ay ka muuqatay khushuucda isla markaasina aad dareemaysay baahida weyn ee ay u qabaan roobka oo ah naxariista ee baa ku manaystay dadkiisa isla markaasina aan laga maarmi karin Maxamed Abdullaahi Dabshid Abeed.com magaalada Boorama